cash in, cash out, cash in, cash in, cash in, cash out, cash out, cash debit, cash credit, account receivable debit, account receivable credit, account payable credit, account payable debit. Confused. T account. بسم الله السلام سمعلوين سيتين سوح ونكسن كلا ونكسن وقت قاعد عاوني سيدو ونكسن سوصانات حيس بدل كسور رواد أركين جنان ما أنت مقال كانوا حكس أساسية وعوان كانوا يهي محوية جونا الانترست كله لجركم محوية تي أكون وسايكلد ugu horeeya accounting steps ugu hore accounting waa akaalneen oo kuwaas ma takaaleen waxa soo sheegnay horta oo ka soo hadalay muxuu yahay accounting ka awaaye waa hab lagu aruuriyo lagu diiwaan geliyo sidoo kale lagu tafatiro lagu soo saaro xog xisaab ee shirkadda leedahay kadibna la wadaago maamulka si go'aan loo gaaro marka maanta waxa ka hadlaynaa markii la dhaho xog hala diyaariyo accounting-ka tilaabooyinka la maro ka sheekeen steps-ka cycles-ka oo la maro ayaa ka sheekeynana ka hadlaynaa koo waxaa ka ah horta identify business transactions horta koo inta waxba qoraa la bilaabin waxba diiwaan gelis la bilaabin qalin aan qaadanin waxaa dhahaynaa horta dhacdooyinkan ama dhacdadan rabna ina diiwaan gelin ama dhacdooyinka aan rabna ina diiwaan gelin ma tahay dhacdo oo xisaab qusayso dhacdo oo lacag qusayso hada taas tig dhahno oo tig saarno oo dhahno confirm way tahay dhacdadan dhacdo lacag qusayso waxa u gudbeynaa tilaabada labaad step labaad u gudbeynaa cycle labaad waxa waaye asigana record transactions into journal entry record business transactions into journal entries okay dhacdadii diiwaan gelinayna tilaabada labaad waxa waaye dhacdadii diiwaan gelinayna intee lagu diiwaan geliyaa marka waxa lagu diiwaan geliyaa journal entries meel loo journal entry ama waxa kale loo yaqaan book of original entry ama book of primary entry magacaas badan leeyahay marka muxuu yahay journal entries muxuu yahay waxa waaye meesha lagu diiwaan geliyo dhacdooyinka lacagta la xiriirta ama qosayso meesha lagu diiwaan geliyo accounting ku diiwaan geliyo waa qal ahaan soo u yaala journal entry ka daahana ama marka la rabo in la qoro journal oo la diyaariyo dhacdooyin la diiwaan geliyo si loo qoro koo waxa laga bilaabaa JE loo soo gaabisan karaa journal entries-ka JE qorane number asiin journal entry number 2 ama 2 ama 3 number ku ay ku maray ama aragtid inaad sameystid kadib hoos u soo degay date ka bilaabay taariikhda kadib waxa ku xijinay account kadib waxa ku xijinay debit iyo credit form kaas oo sameeyay date account debit iyo credit marka form kaas u sameeysid oo dhacdada rabtid inaad qortid date meesha taariikhda waxa lagu qoraa taariikhda ama waqtiga ee dhacdadan dhacday aan ku qoray account meesha waxa ku qoray akoonada ay saameysay aan ku qoray debit iyo credit iyo si u kala tagayaan ayaan ku qoray ama lacagahoodii ku qoray okay date aan soo laabano taariikhda waxa la qoraa taariikhda badanka bisha kooda camal hadii dhacday ama business festival diltamay ayada laga bilaabo bisha magaceeda iyo numberka kuwaas raacay ama numberka wax ka dhacay ugu horeeyay raacay kadib wixii soo raaca ama page-kaas oo dhan inta ku qoraysid wax bilish ma soo celinaysid kaliya number asi qaadan labana waxa saa dhacay saddex waxa saa dhacay afar waxa saa dhacay waa taxay marka qof haduu aragay number oo aragay iyo waxa la sameeyay diiwaan gelis horta lagu sameeyay kor ayo fiirna kor u laabanaa bas wuxuu soo arkaa formka kor oo ah date inuu hoosteed ku qorinta bishaasna soo bilaabtay oo numberkaas oo ku socdo bishaas oo ku soo sanad ayaan sidoo kale lagu qoro oo bilow ayaa sanad lagu qoran 2017 adeena bish maaja adeena match first واحد investment سمينا اوكي wixii soo raaco dhan waxa oo maaja soo laabta dhan waa qorayna anaga bish soo celinina qorkana hadaan bish soo celin karna markasta maaj ismina waxaan dhacayna maajnaan dhacayna maajteen waa dhihi karna soo celin karna hadaan ma soo celin bish meesha u qorayso ku diisanayna sidoo kale sanadka asnatigiis meesha u qoran ku diin kartaa waan soo celin kartaa almuhim marka qowan taariikhda hal mar waa qori kartaa oo kaliya numbers maanta dhan wadi kartaa ayadoo kor hadii loo laabto laga arkayo ama maanta dhan soo celin kartaa bil isan wixii xirta ahaday okay qaybta account-ka soo gudbina dhacdada marka taariikhda ay dhacday aad diiwaan gelino qaybta account waxa ku qorayna akoonada ay saameysay marka oo account waxa la diiwaan gelinaa waxa dhan waxa jiro hab wax loo diiwaan geliyo oo ah double entry in dhacdada kasta oo dhacdo ugu yaraan ay saameyso laba account saddex ay saameyn karta ay ka badan balse ugu yaraan waxa la rabaa laba account in ay saameyso oo laba dhinac kale debit credit kala okay waxa qorayna marka akoonada ay ka saameyso qorayna akoon hal akoon debit iyo hal akoon credit hadooyaha ama laba akoon debit laba credit hadayhin ama door hal credit hada laba debit hada adi akoonada ay dhacdadan saameynta ku leedahay ayaa qorayna okay debit credit oo kala yihiin ama lacag kala wataan waa kala siinayna marka waxa marka la rabaa lacagaha ku qortay debit oo dhahdo akoonada debit ku qortay balance-gaas ama lacagta ku qortay iyo kuwa credit ku waxa ku qortay in islaadaan la rabo
keli hadaa confirm siin horta tusaalada aragno taariikhdii qoraan double entry oo check ah yani ugu yaraan 2 account hadaa aragno bas intaas lagu filan ma dheheen waxaa sii qiimeynana aydan fiina debit credit misla eegeen debit credit hadaa isla ekaan aydan su'aal ay imaanayso waxaa jira account la ilaawo ama oo laga soo tago waxay noqonaysaa marka in lagu laabto dhacdooyinka si marka aan loogu laabanin dhacdooyinka ama transactionada hadii koo lagu laabanin ilaa waa soo fududeeyay oo waa diiwaan geliyay marka waxaa rabaa in dib loo laabanin taariikhda ay caddahay akoonada ay saameysan cadii debit credit taasiga oo isla eegaya debit credit ay isla eegayeen sidoo kale hoos waxaa lagu qoraa brief note oo ah waxa debit credit waxa kale tacaamul wixii dhaca waxa soo iibiyay ama business investment kareena oo amaal gelinay ama waxaas deen anaga iska bixinay ama qof deen ku leehna noo keenay oo ka shaqabanay wax amal oo yar oo kooban marka oo saas journal entry oo u diyaarsan yahay ma u baahan marka in transaction lagu laabto dhacdo lagu laabto u baahan waa taariikhda caad akoonada saameysan debit credit oo isla eega cad brief note hoos waxa lagu qoray wixii la sameeyay oo dhacay okay waa marka waxa waa tip waa journal entry si sax u diyaarsan yahay oo kala iska marka hada tusaale ka soo qaadan ayadoo dhacday si sax ah loo diiwaan gelin waxa dhigi karna tusaale anaga waxaan ahay shirkad electronics oo iibisa gaar ahaan computerada iyo telefoonada tusaale kasta baa marka noo imaaday wuxuu naga iibsaday laptop naga iibsaday laptopka kuna iibsaday laptopka lacagtiisa waxay ahayd qiimihiisu ahaa $300 marka qofkan $200 bixiyo oo cash ah okay $100 wuxuu dhahay igu lahaa okay marka inaad diiwaan gelin rabno dhacdadas waxa dhigana horta cash in debit waa cash qabana oo soo galay oo bidix ama bidix ama debit ama increase soo noqdo cash in noqdo oo batay sidoo kale maxaa kale oo in ayadana ama oo debit akoon receivable waayo qofka wuxuu dhahay hal igu lahaado waan macmiilkeena waa marka lacagta ku sugayna lacagta customerkeena ama macmiiladana ku sugayna anaga akoon receivable oo ku qoranta akoon receivable waa debit koor inta aan la bixin okay kiradina maxaa noqonaya de shaygii baxay sales revenue waa dhigi karaa sidoo kale waxaa dhigi karaa computerka naga baxay oo asadka oo naga baxay kirida hadii jooga haye si sax ah loo diiwaan geliyay hadda waxaa arkaynaa cash oo $200 oo debit sidoo kale $100 akoon receivable oo aydan debit isku darka debit waxa waa 300 kiradina waxaa jooga ayaan 300 balance waa saxanta 300 iyo 300 qaladka marka wuxuu ka imaan akoon receivable oo dhan hadaa ka tagan oo tusaale ah dhahno $200 cash qabano debit waxa iibinay computer iibinay naga baxay oo credit oo 300 waa marka qalad meesha iska jiro taariikhda dhacda way saxan tahay double entry oo saxan yahay oo yaraan 2 account way sameysay balse debit credit islam eco marka waxa dhahaynaa debit credit waa in isla ekaadaan meesha maxaa ka qaldan maxaa laga soo tagay qofka markuu dhacdaas ama loo diiwaan geliyo arko wuxuu ku fikiraa discount maal sameeyay oo $100 oo farq u dhaxeeyo 300 ilaa 200 boqolkaas discount maal sameeyay mas akoon receivable ah marka waxa loo baahanaa in dib loogu laabto dhacdada dib loogu laabto marka dhibkaas dhan dib inoo noqdo diida waxaa la rabaa in mar hadii la diiwaan geliyo dhacdada aan dib loo laaban oo taariikhda lacagta akoonada saameysan lacagta debit credit inay isla eegyihiin hubiyo hoos brief note lagu qoro loo tusaale customer wax naga ama receipt cash sameeyna qabana qaar akoon receivable qori yani wax yar oo note in la raaciyo markaas ma loo baahanaa in gadaal loo noqdo ma loo baahanaa waa cad tahay dhacdada waa dhameystirantahay debit credit isla eegyihiin wax walba waxa ay miisaamayeen marka dhacdooyin fara badan tusaale ka soo qaadanay shirkadeena oo electronic oo iibso waxa hada ku sii socono tusaale ka soo qaadan dhacdooyin fara badan halkii maalin dhici karo marka oo la qoro dhacdo maanta kaliya waxa dhacday dhacdadaas hadana midtaas cash in cash out cash in aadana oo saameyn fara badan oo cash intaas oo jeer maanta soo noqdo marka waxa u baahanaynaa tusaaledaas weydiin dhamaadka maalinka oo dhan maanta cashka soo gal iyo naga baxay keeba badan daadhan ama maanta cash maxaa gacanta ku keenaa daadhana dhibay noqonay waxay noqonay hal ugu noqdo journal entry maxaa ku qoraan maanta tusaale konton dhacda diiwaan gelin konton dhacda maanta diiwaan gelin 27 kamid ah ama ka badan cash xiriir leeyahay mid si baxay mid soo kala marka masaala dhigana marka okay hada xisaabano maanta cash intaan marka koowaad dhacda koowaad cash wana soo galay kii kale wana soo galay kan wana baxay maanta si mal akhna may waxaa nooga fudud marka waxaa loo baahday talaabo kale loo baahdo oo lagu sii fududeeyo journal xogta ku qoran talaabada saddexaad marka ugu gudbeen talaabada saddexaad waxa la post to lecture intii akoon sameeyo posting ma mar qaar ayada kaligeeda saaka laga dhigaa bas wax kale ma posting
waxaa waaye kasoo guurin xogta journal ku qoran oo lagu soo guuriyo ledgerka intii akoonka lagu soo guuriyo aa la habastimitas marka talaabadeena xigta ama cyclekeena xiga stepkeena xiga noqonayana stepka saddexaad cycleka saddexaad noqonayo waxaa waaye waxaa dhiganaa ledger waaye okay ledgerka muxuu yahay maxaana ka muuqda ledgerka waxaa waaye wuxuu soo aruuriyaa akoonada ku qoran journalka dhacdooyinka ku qoran ayuu soo aruuriyaa xog aruursan oo la fahmi karo oo macquul ah soo dhigan okay marka qaabka loo qoraa tii akoon sababta loo magaciisa labaad uu yahay waxaa waaye qaabka tii loo qoraa marka ledger waxaa ka muuqda akoon kasta iyo balances ka muuqda akoon kasta waxaa la siinaa tii akoon la siinaa kadib waxaa la tusaalada qaadana cash ku qoraynaa bidix waxaa waaye debit midigna waxaa waaye credit waxaa ku qoraynaa bidix cash in waxa ahaayo dhan ku qorayna credit waxa ku qorayna cash out wixii ahaayo dhan waa kala jarayna debit balance cash meesha ku cadeynayna ama hadii cash credit ku qorayna oo badan yahay xagga soo balance noqona okay akoon kasta saas loo qoraa akoon si balance kala loo diyaariyo office la diyaariyo mid kasta akoon payable la diyaariyo wax adi ilaa iyo expense revenue wax dhan aan diyaarin marka waxaa loo qoraa sida loo soo hormarina akoonisa loo soo hormarti akoon loo sameeyay liability loo xijina soo kale equity loo xijina waxaa kale loo xijina revenue expenses nidaamkaas loo diyaarina hadana xabarina ledgerka muxuu qaybsamaa ledgerka loo qaybsamaa subsidiary ledger iyo journal ledger subsidiary muxuu yahay sub waxa uu ismaana journalka hoos imaana waxaa loo baahdaa marka subsidiary ledger in sameeyo waxaa loo baahdaa marka xogteena ay aad u farbadant oo kale oo journalkeena marka diiwaan gal oo aad u farbadanto xogtii oo dhahno kumanaan tusaale customer wax laga iibsaday kumanaan dhacdooyin dhacay markaas hal ledger kaliya hadaa qorno oo journal ledger kaliya ka bilaawno dhacdooyinka aad u farbadan journal ledger oo rabo inuu wax soo koobo wax bay marka asiga lagu wareeraa marka wareer noqon markaas loo baahnaa in sab la diyaariyo kadibna journalka midka ah la diyaariyo maadaama maanta dhan aan ka sheekeynayno akoon hebel inta muka tirsan yahay asset liability dbd credit maadaama maanta dhan aan ka sheekeynayno hadda waxaa baranaynaa oo si uu fududaato hawsha dhan oo loo fahmo waxaa baranaynaa tusaale qaadanaynaa akoonada assetka ah iyo akoon liability iyo kuwaas iyo meelaha ka kala kordhaan horta akoon hadaa maqshid waxaa la rabaa hore inaad kusoo saartid familkiisa oo dhigi kartid akoon hebel asset waa kaas liability waa kaas equity waa dhigi kartaa labo marka tusaalada qaadanayna cash hadaa maqshid ama ku arto waxaa la rabaa oo akoonkaas asset waa waliba curadka asset waa cash okay akoon si balada hadaa maqshid oo kale inaga asset dhigi kartid akoon payable liability saas la rabaa sidoo kale meelaha ay ka kala kordhaan asset inta ku kordhaa bidix ku kordhaa debitka inta ku nusqama credit liability equity cagsi ku yihiin expense sidoo kale waxay raacay assetka oo debitka ka kordhaa waxay ka nusqantaa credit revenue wuxuu raacaa ama faa'iidada waxay raacay liability equity raacay meesha kordhaan meesha ka raadana okay taas inay ku xifdisantaa kuwaas daa ku wareeraysid waa taa qof ku cusub accounting barashadiisa caadi waa normal waa inaad ku wareersid bilowga ugu horeeya ama sanadka ugu horeeya akoonta baranaysid waa soo lagu wareeraa in aad kala meelaysid akoonada oo marka akoon horka aragtid aad dhigi kartid in asad waa ama liability waqti ay xooga kugu qaadanay iyo dhinaca kordhay dhinaca adaa aragtid akoon asset oo joogo debit mid credit joogo waxay kala duwan yihiin midka in midka ood marka ugu horeysa waa lagu wareeraa waana caadi waay dhib ma laha balse hadaa muddo ku dhex jirtid sanadka labaad ama saddexaad camal aad tagtid ama laga yaabo intaad dhamaysid aad ku shaqaysid oo ku dhex jirtid aad si fiican u baranay يعني حيلي هير وحكار يقول إنت اسمه أو لو بهني بإن أتكفي كل شيء أنت هو هذه لو بهني لنا كارا أوكي هذا مركا سي فضوط مركا سي فضوط أو لو حفتي أجيب مركا أكون هذا أسد كنت صار أنت كقرة أنت كنت صامة سيدو كلا لبيلد أنت كقرة أنت كنت صامة سي فضوط أو لو حفتي أجيب واحد حسوسين أنا قاعدة يعني أكونتك محقق هاد is equal L plus E أما L plus C ما إيه كرتا capital أم إيه كنت مركا ربطة على كرتا asset is equal liability plus equity asset ku wuxuu la eg yahay ama hantida shirkadda inta loo waxay la eg tahay deynta soo qaadanay oo lagu daray maalgelinta anaga sameeyay intaas ay Soomaha qaacadadaas ay okay asset kaliya xifdi marka soo qab waxa asset wuxuu ka kordhaa bidix ku kordhaa debit ku kordhaa wuxuu ka nusqaamaa midig credit ku nusqaamaa debit waa bidix credit waa midig okay asset waxa inta ka kordhaa bidix ku kordhaa oo ka saa'ida haddii aragtid akoon asset oo joogo debitka oo kordhay oo soo galay waa haynaa haddii ku aragtid akoon asset creditka ku aragtid midiga ku aragtid oo naga baxay haddii cash oo naga baxay akoon si baltaan oo hal baabi ka dhigantaa marka asset saasiya dhinaca kale oo maanayna qaacadada ay ku soconaya
asad waa soo ogaana in ay dhibid ka kordho creditna oo kala sqaamo hay dhinaca kala qaacdada oo maanayna liability iyo equity oo maanayna deenta iyo maxay maalgelinta aan sameeyeen ama ownerska lacagtooda labadaas ayaga waxay cagsi ku yihiin asadka cagsi ku yihiin waxay ka kordhaan ayaga midiga kordhaan creditka waxay ka nusqaamaan bidixay ka nusqaamaan dhibidka marka cagsi ay ku yihiin sababtaasna waa sababta keentay in asadka uu la ekaado labadan la isku daro way hadii dhibid credit balance-gaas ma jiri lahayn hadii meesha oo asad ka kordhay ayagana ka kordhi lahayn meesha ka nusqaami lahayn balance dhibid credit ma jiri lahayn asina asadna ma la ekaanay labadooda la isku daro tusaalayaal marka qaadanayna waxaa laga yaabaa dhacdada in ay saameyso waxaa dhahan horta dhacdada ugu yaraan waa in laba akoon saameysaa laba dhinac dhibid credit ka noqotaa ka badan 3 iyo ka badanna way noqotaa way saameyn kartaa marka dhacdada ma ku xirno ama ma lagu shaqdinayo akoonada ay kala saameynayso in ay kala ahaadaan tusaale cash mid ahaado mid liability ama lagu shaqdinayo waxaa laga yaabaa dhacday oo 3 akoon saameysay in ay kulli wada noqdaan asad wada noqdaan dhici karto tusaale hadda aan soo qaadana maxaa dhahnay waxaa sameeyna dhahnay qof aniga iibsaday shay computer camal la iibsaday 300 ahay 200 cash ku dhiibay 100 wuxuu lahaa igu lahaado marka waxaa qornay cash dhibid oo 200 sidoo kale akoon receivable 100 ku qoran dhibid laba akoon waxa u jeednaa oo dhibid oo kordhay cash hada aragtid asad oo dhibid jooga wuu kordhay waay cash dooyaha waa soo galo akoon receivable data waa deen dadku leena oo sugeen waxa soo iibiya data waa alaab soo adeegan waa haysanaa okay hadda credit ku aragtid waa baxdaba isla tusaalahaba maxaa iibinay computer anaga baxsan maahan marka tusaalaas waxaa waay 3 waxay akoon oo waxay saameysay computer baxsan oo sales review noqdaa review noo saameeyna 3 akoon asad waa meesha waa ka arkoona labana soo gashay iyo mid baxa computerka okay tusaale ma marka qaar wuxuu noqon karaa asad iyo liability kala saameyn kara marka tusaale waxaas anaga soo adeeganayno okay wax ku soo adeeganayna deen dadka sabraarka una ha u tageena adeeg rabna deen okay marka waxaan soo galay oo in ala adeeg asu adeegina tusaale hada ku wadna shirkadii oo electronic iibisa computerada iyo telefoonada ku wadna baa soo iibsina computer ama telefoon asu iibsanina marka deena ku soo iibsanay maxaan soo galay alaabta soo adeegina soo gal oo laptop computerada iyo maxay ahayd iyo telefoonada soo galeen waxaa marka credit noqonaya account payable deenta soo lagu leeyahay in iska bixin way taa qoranta okay hadda marka maxaa dhacday horta waxaa ka arkoona in ay horta waa tik waa dhacdan laba akoon way saameysay ugu yaraan laba akoon way saameysay dhibid credit way kala noqdeen waxaa soo galay dhibid waxaa noo akoon oo asad oo ah alaab soo adeeganay mid kan naga baxan credit noqon akoon waxaa oo liability oo deen lagu leeyahay okay dhibid credit ku isla eegin salaad ku soo adeegay 5,000 ata 5,000 dhinacan kan 5,000 okay waxa bitay ku taariikhda dhacdada qorto waa qora journal inta ku qoran marka waxa dhaheena tusaale dhacdada waxay saameysaa dhaheena laba akoon ay saameysay labada akoon waxay kala yihiin midna waa asad midna waxa dhaheena waa liability okay saameyntu waa garanay iyo akoonada familada ay kala yihiin akoonada familada ay kala yihiin marka aan garano waxa kala soo weydiinayna ma kordhay mise ma yaraadeen waxa xasuusanayna asad intuu ka kordhay asad wuxuu ka kordhay bidix dhibida kordhay intuu ka nusqaamay credit hadda marka tusaale ama dhacda aan qornay asad intuu jooga dhibida jooga aad soo adeegana dhibid joogto samahan marka hadda asad wuu kordhay credit yaa joogay dhid waxa jooga deenta yaa joogta liability yaa joogta account payable ku qoran marka account payable oo credit jooga muxuu ahay waxaa dhahnay deenta liability iyo equity waxay cagsi ku yihiin asadka Soomaaliya meesha asaka kordhay ka nusqaama meesha ka nusqaama ka kordhay hadda marka account payable intuu jooga meesha oo asad ka nusqaama jooga marka wuu kordhay la macna deenta way kordhay waana sax deenta waa lagu leeyahay waa inaan bixinaa okay hadda marka tusaalahaas ama dhacdaas waxaa ku aragnay laba akoon oo asad iyo liability kala saameysay ama dhacdada ku lahaatay lug labada akoon labadoodaba increase sameeyay way kordhay okay hadda tusaale kale waxaa qaadanayna labadooda ay decrease sameeyaan isla tusaalihii hadda increase-ka aan soo qaadanay haddana ku qaadanayna kan sidee ewl wuxuu ahay alaaba soo adeeganay deenan ku soo adeeganay oo credit waxaan joogaa account payable deenta aan korto soo maahan hadda marka waxa ka dhigan deenta bixinayna okay deenta marka la bixinayo anaga maxaa naga baxayo cash out naga noqonayo cash naga baxayo credit oo taga cash out naga noqonayo credit oo taga okay cash ma koona ba dhibid maxaa noqonaa dhibid kareen account payable kala baabina account payable ka halgeena dhibid halgeena account payable dhibid joogta artid
waa la xiraa wada xisaabtaas oo maxay ahayto waa la baabi'iyey ma sii jiro lacagas ma nagula sii lahaan waa iska bixina waa bedelkeedana aniga kaashaa naga baxay okay labadooda hadda marka waxaa ku aragnaa in oo asset account oo joogo credit oo cash baxay liability account inay joogto debit oo account payable baabi'iyey aa ujeednaa waa tusaale ayagana decrease sidoo kale waxaa soo raaca assetka waxaa soo raaca oo meesha ka kordho meesha ka yaraado expenseska iyo dividend aa soo raaco akoonadooda sidoo kalena liability equity ayagana waxaa raaca revenue meesha oo ay ka kordhaan meesha ka yaraadaan kana revenue waxay ka kortaa creditka waxay ka yaraataa debitka ama adhaana waxay ka kortaa midig waxay ka yaraataa bidix okay midig iyo bidix waa ku kala xifdin kartaa debitka waa bidix creditkana waa midig laga yaabay midkeed in ha ku reertaan kaamiradu ay soo horjeedaan badanka kaamirada markay soo jeedo way weerartaa bidix iyo midig way ka rartaan hada soo kabno maqaalkeena maanta wuxuu ku saabsanahay oo kaga soo hadalnay accounting cycles kuwooda ugu horeeya 3 accounting cycles soo barnay oo step oo la maro marka oo xog la diyaarinayo koo waxaa kasoo dhignay in la xaqiijiyo dhacdada in ay tahay dhacdo business qusaysa laba waxaa dhahnay markaa xaqiijino waa inaa diiwaan gelinaa oo journalku diiwaan gelinaa journalka iyo wuxuu yaa kasoo hadalnay saddex sidoo kale waxaa dhahnay waa in analyze lagu sii sameeyo oo lasii taftira oo tii akoon la keena oo lasoo kooba xogtii sidoo kale waxaa soo baranay akoonada iimaylaha ka kordhaan iimaylaha ka nusqaamaan tusaalooyinna waa soo qaadanay intaan ayaynu ka egyahay muuqaalkeena maanta ilaa inta muuqaalka daadaawanaysay aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay waqtigaada haddaa wax ka faa'iiday like saar mahadsanidin ugu dambeyntiina aan ku salinay nabigeena allahuma salli calaa maxamedin wacalaa aali maxamed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد